agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Burco Dr. Cabdiqaadir Muruq maanta kula kulanay xarunta cisbitaalka ayaa waxaan wax ka weydiinay xaaladda guud ee cisbitaalka sida ay u socdaan hawlaha shaqada cisbitaalku. waa cisbitaalkii guud ee Burco. cisbitaalku wuxuu ka kooban yahay waxa shaqaalihiis waxa weeyaan 13 dhakhtar, qualified nurse 70, auxiliary 30, nadiifiyaal iyo waardiyaal mid walba 30. cisbitaalku waxa weeyaan cisbitaalka gure marka bari ka shaqeeyo weeye. cisbitaalku wuxuu u adeegaa ilaa Sanaag, Sool, Togdheer iyo dhammaan kilkan shanaad xadka waxay nagu beegan Ethiopia. cisbitaalku shaqadiisu maanta u shaqeynayaa dhammaan wararkii way shaqeynayaan. wuxuu adeegyadu bixiyaa waxa ka mid ah wuxuu ka kooban yahay emergency gargaarka degdega ah, theater wax lagu qalo, laboratory iyo waararka dumarka ay ku dhalaan, waararka daweynta, waararka qalliinka iyo waararka carruurta. agaasimaha cisbitaalka guud oo ka hadlayay cidda taageerada ka geysata sidii ay u socon lahaayeen hawlaha shaqo ee cisbitaalka ayaa waxa uu ku jawaabay. cisbitaalka wuxuu ka soo saaraa mushaharka badh ay dowladdu siiso, badh bulshada cost recovery oo bulshada lacag ahaan ka soo baxdo cisbitaalka, iyo badh tujaartu dahabshil ugu horeeyo iyo telesomba ayaguna bilaha dambe iyo bilaha soo socdaba waxay ku ballan qaadeen inay geesta kalena dadka haya bukaanada kala duwan ee ku jira cisbitaalka magaalada Burco aan wax ka weydiinay sida loo daryeelo dadka bukaanka ah iyo inay helaan waxyaalaha ay u baahan yihiin ayaa waxay yiraahdeen. marka muddo way xiriirsan adigu xanuunka la dhacday toraabay koomay markaa gashado koomadii intaan gaari ku soo sameeyay bay ka baxay meel fog baad fiican oo baan ka keenay xaaladda caafimaadka kaas tomaada dhakhaatiirtuna weli nama sheegin xanuunka waxay ku rafetay biyuhuna ku fadhaada saaka gargaarka degdega sidee loo soo dhaweeyay marka hawsha timaadda cisbitaalka marka dhakhtarkii timaadeen gargaarka degdega sidee inta la geliisay meeshu amana lagu shaqeeyay waxaan ku dhacay kursiga gaariga markaan ka soo noqday gabadha dhakhtarka la keenay markii raajooyin waa la saaray waa la sawray saasay noqotay maxay labada wada jabaan كم سنة بينك؟ xaaladda caafimaadka gabagabadii agaasimaha guud ee cisbitaalka Burco Dr. Cabdiqaadir Muruq wuxuu baaq ku aadan taageerada cisbitaalka Burco oo uu diray guud ahaan bulshooyinka reer Soomaaliland qurbo joog iyo qolqol joogba gaar ahaan kuwa u dhashay gobolka Togdheer. waa Khalid Bakeyle, shabakada caalamiga ee Ictiraaf News, Burco.